بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم مبادئ الإدارة محاضرات تسلسلية يقدمها الأستاذ محمد عبد الرحمن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إن شاء الله waxaan bilaabi doonaa duruus iyo casharo ku saabsan cilmiga idaarada. duruustaas iyo casharadaas waxaan u soo gudbinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan cilmigan oo muhiimadiisa caalamka dhan uu isla qiray oo ma aragta anshatada dhammaan bani aadanka uu qabto muhiim u yahay. idaarada zamankan aan joogno qof ka maarmo ma lahan, ha ahaado qofkaas qof shakhsi ah, shirkad ha ahaato ama urur, xitaa dowladda kama maaranto idaarada. marka kayaan walba si uu u xaqiijiyo ahdaaftiisa laabudda waxaa laga maarmaan ah inuu lahaado ma aragta idaaro oo tayo leh. idaaradaas ayaa u xaqiijinaysa ahdaaftiisa. insha Allah duruustan waxaan ku soo bandhigi doonaa asaasiyaadka idaarada. qof walba faa'iido ay u noqon doontaa. marka waxaan ka hadli doonaa maxay tahay idaarada, waxyaabaha ay qabato ama wadaa'ifta ay samayso, shaqooyinka ay samayso maxay yihiin, xitaa munadamada ama shirkadda maxay tahay, mustawayaadka ama heerarka kala duwan shirkadda idaaradeeda ka kooban tahay, qofka maamula shirkadda, mudiirka ama agaasimaha shirkadda, mahaaraadka laga rabo, iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa majaalaadka ay gasho idaaraadka ama goobaha ama fieldiska idaarada ay gasho. insha Allah casharkan waxaan ku bilaabi doonaa mafhuumka guud ee idaarada ay leedahay. maxay tahay idaaradu? idaaradu waa cilmi weeye. cilmigaas oo lagu barto ma aragtaa sidii wax loo maareyn lahaa ama loo maamuli lahaa. culummo fara badan ayaa ka hadashay oo culimada ku takhasusay dhanka idaarada ah. marka waxaan soo qaadan doonaa definitionada ama tacriifaadka ay ka dhaheen culimada ugu waaweyn idaarada. ka bacdi waxaan sheegi doonaa tacriifaadkaas canaasirta ay isku mid yihiin ama elementska ay wadaagaan, saan mafhuum guud ama faham guud ah uga qaadano idaarada. haddana waxaan bilaabanaynaa casharkeenii koowaad oo ah introduction about management ama mafhuum al-idaara. idan maxaa lagu qeexay idaarada? culimada ugu waaweyn idaarada waxaa ka mid ah qof la dhaho Frederick Taylor la dhaho oo u dhashay waddanka Mareykanka. waa qofkii ugu horeeyay oo qoray kitaab ka qoray cilmiga idaarada 1911 ayuu qoray. ma aragtaa qofkaas wuxuu ku tacriifiyay idaarada inay tahay in la ogaado ama la garto waxyaabaha ay qabanayaan shaqaalaha shirkadda. markii la ogaado arrintaas in la hubiyo shaqaalihii ma sameeyeen waxyaabihii laga rabay, ka bacdina qaababka ugu fudud ama wadada ugu fudud oo ugu raqiisanna ma aragtaa lagu xaqiijiyo howlaha shirkadda. intaas ayuu ku tacriifiyay. waxaa kaloo idaarada tacriifiyay muhandis Francis ah oo asna culimada ugu waaweyn idaarada ka mid ah. waa dadkii ugu horeeyay ee ka qoray kutubta idaarada. asna kitaab ayuu qoray 1916. kitaabkaas oo kaga hadlayo idaarada, al-idaara al-umumiya ayaa la dhahaa kitaabkaas. wuxuu ku tacriifiyay idaarada inay tahay ama maamulka inuu yahay in ma aragtaa tanabbu la sameeyo ama ma aragtaa mustaqbalka waxa dhacayo la taxliiliyo, ka bacdi
tanabbu'gaas ayaa waxaa lagu dhisayaa qorshaha ay shirkadda ay ku socon doonto. marka waa casharkeena maanta waxaan ku baranay hor u dhac ku saabsan idaarada waxay tahay qeexitaankeeda waan soo qeexnay culimada ugu waaweyn Frederick Taylor iyo Henry Fayol qeexitaankay ku qeexeen idaarada ayaan sheegnay ka bacdi waxaan kaloo dhahnay culimo fara badan oo ku takhasustay idaarada ayaa qeexay laakiin dhamaantood markaan isku soo duubno 4 cunsur ayay ku kulmayaan 4taas cunsur oo taariifaadka dhamaantood ay ku kulmayaan waxaan ku soo sheegnay awal in meesha ay jirto ahdaaf ama goals ay jiraan tan labaad waxaan soo sheegnay in mawaarid ama resources ay lahaato shirkadda ama ururka tan saddexaad manhaj ay marto ay ku maamusho tan afraad waxaan ku soo sheegnay inay lahaato bii'ada waxaa u soo qaybinay mid khaariji ah mid daakhili ah marka guud ahaan waxaan ku gabagabeynaynaa darsigeena shirkad walba say ahdaafteeda u xaqiijiso awalan waa in ay fulisaa howlaha idaarada ay qabato markay fuliso howlahaas waxayna ku tabaqaysaa mawaaridda idaarada leedahay ayadoo maamulaysa dadka u shaqeynaya ka bacdi saddexdaas shay marka la helo idaarada ama maamulka shirkadaas wuxuu xaqiijinayaa ahdaaftii ama yoolalkii loo aasaasay ururkaas ama shirkadaas aad u mahadsantihiin duruusta soo socota insha Allah waxaan ku qaadan doonaa qeybo kale muhiim ah oo ku saabsan idaarada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.